الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. caawa waxaynu ka hadlaynaa haddii alla idmo qaanuun la yidhaahdo qaanuunka 90 jeexid 10 boqolkiiba. qaanuunkan waxaa soo saaray nin la yidhaahdo Stephen Covey oo ah nin aad iyo aad loo yaqaano, qoraaladiisana aad loo jecel yahay, fiidiyoyaal badanna leh oo dadka tababaro ah. ninkaas marka wuxuu alifay oo ogaaday qaanuun la yidhaahdo 90 boqolkiiba jeexdin 10 boqolkiiba. qaanuunkaas maxaa laga wadaa? qaanuunkaas waxaa laga wadaa suu isaguba u fasirayo qofka bini aadamka ah umuuraha ku dhacaya isaga waa boqolkiiba 10, laakiin isaga falcelintiisa ka falcelinayo waxaa ku dhacay waxay noqonayaan boqolkiiba 90. macnaha waxa weeye muhim maaha waxa kugu dhacaya adiga, laakiin waxaa aad iyo aad muhim u ah saad adigu uga falcelinaysa arrintaas iyo suu noqonayo dhaqankaagu wixii kugu dhacay kabacdi. wuxuu soo qaadanayaa ninkaas Stephen Covey la yiraahdo, nin ayaa wuxuu u socdaa shaqadiisii goor subaxa. markuu labisto oo dharkiisii qaato oo isleeyahay bax, ayaa gabadhiisi yarayd oo iskool u socota ayaa waxay shaatiga uga daadinaysaa si qalad ah qaxwo miiska saaran. ninkii intuu xanaaqo ayuu gabadhii ku qaylinayaa oo hadallo aan macaaneyn ku oranayaa oo canaananayaa. gabadhi yarayd way iska oynaysaa, waa gabar yar, waxaan dhacaya wax weyn uguma fadhiyaan, way oynaysaa. halkaasay oohin la fadhiisanaysaa. iyadii waxaa la rabaa in la diyaariyo, inay iskool aado, inay labisato, inay quraacato, intiiba waa diideysaa. markay diido oo la wado cabaar la wado, aabihii wuu baxayaa, qolkiisuu gelayaa, shaatigii buu iska soo bedelay. markuu shaatigii iska soo bedelo, gabadhii baskii qaadi lahaa oo iskoolka u qaadi lahaa ayaa imanaya. markuu baskii yimaado, gabadhii diyaar ma aha, cabaar buu taagnaanayaa, baskii waa iska tegi. gabadhii yareyd markii quraacdii xoog lagu siiyo oo dhaqso loogu labiso, odagii waxaa khasab ku noqonaya inuu gabadhii qaado oo iskoolkii geeyo. waa ninaan awal ku xisaabtami jirin, dariiqii iskoolku wuxuu noqday mid ay gawaaridii ka buuxaan oo intii ishaadu ay qabato gawaaridu is haystaan. halkaas ayuu is cunayaa, ninkii xanaaqayaa. waxaa laga yaabaa inuu is yiraahdo meeshaan ka laabo meel mamnuuca oo la ogolayn. askari ba qabanayo, wuxuu u goynayaa marka ma garanaysaa ganaax. ganaax isagoo wata ayuu gabadhii iskuolkii geynayaa. halkaasuu kasoo shiraacanayaa marka isagoo u socda iskoolkii shaqadiisii. shaqadiibu wuxuu imanayaa 40 daqiiqo kabacdi isagoo soo dahay. shaqaalihii markaa waxay oranayaan maxaa kugu dhacay? ninkii madaxda u ahaa wuxuu oranayaa maxaa kugu dhacay? ninka maalintiisa o dhan waxay noqonaysaa maalin mugdi ah oo dhibaato badan oo aan raaxo lahayn. shaqadii wuu ka daahay, shaqo laga raba inuu fuliyo wuu fulin kari waayey. intaa waxaa usii dheer, markuu shaqadii kusoo noqdo, kasoo baxo oo gurigiisa yimaado, xaaskii bay fooda isdarayaan oo saaka dhibaatadii dhacday oo guriga uga tegey. iyadiina madaxay isdarayaan oo waa isku caroonayaan oo waxa dhacaya waxaan aad iyo aad farxad gelinayn. ninka maalintiisii oo dhan waxay noqonaysaa maalin aada u dhib badan. haddaa marka eegtid, dembigu ma qaxwaha la daadiyeba? dembigu ma askari baska dhaqaaqayba? dembigu ma ninka gaariga muxuu aha askariga u gooyey muxuu ahaa ganaaxaba? dembigu ma mudiirkii iyo shaqaalihii ay wada shaqeynayaan oo isku caroodeenba? dembigu ma xaaskiisii oo dhibaato kula soo noqdayba? may intaba maaha.
qaxwihii markuu daatay waxaa ka dhashay 9 shay oo kale 9% oo uu ka falceliyey oo dhibaato u keentay isagii gabadhiisii shaqadiisii iyo gurigiisiiba bal ka waran marka hadduu si kale u dhaqmi lahaa gabadhii markii qaxwihii ku daadisay 10kiiba ka soo qaad 10% hadduu oran lahaa aabe wala waa gabar yare qof fiican baa tahay laakiin marka dambe iska ilaali arrintan dhib bay inoo keenaysaa gabadhii iyadan ooyin bay quraacdeedii cuni lahayd ma garanaysaa baskeedii bay raaci lahayd isagii dharkii buu iska bedeli lahaa 5 daqiiqo gaarigiisuu qaadan lahaa dariiqii uu yaqiinay shaqaduu mari lahaa shaqadiisu maalintaas si fiican bay ugu fulilayd gurigiisuu kusoo noqon lahaa gurigoo raaca halkaa maxaa ka garanaysaa 10% weeye waxa isaga ku dhacay oo uusan ikhtiyaarka ku lahayn waa gabadha qaxwaha ku daadisay ma uusan bedeli karin laakiin 9 kale waxbuu ka bedeli karay sidoo kale haddii aad timaadid meel airport oo diyaaradii adigoo isku diyaarinaya inaad duushid lagu yiraahdo diyaaradii waxay baaqatay 6 saac oo markaa intaad tagtid aad shaqaalihii diyaaradda la dirirtid kuwii tigidka goynaya la dirirtid kuwii airportka ka shaqeynaya la dirirtid oo meeshii dhan aad buuq ka kicisid oo iyagana ay laga yaabaa dhibaato kale inay ku geystaan 10% waa diyaaradii baaqatay laakiin 9 falcelintaada waay wuxuu ku leeyahay marka ninka Stephen Covey haddii qof si xun kuula dhaqmo oo hadallo aan wanaagsanin uu kugu yiraahdo ha noqonin sidii isbuunyada nuugta biyaha oo kale ha noqonina waxaa noqotaa sidii muraayad oo kale muraayadda biyaha haddii lagu shubo isbuunyadu waa nuugtaa laakiin muraayaddu way raacayaan uun waxaa laga rabaa dadku waxa ay ku leeyihiin ama kaa sheegayaan ama dhibaata waa 10% falcelintaada 9 aba waxaa la rabaa inay noqoto mid wax dhisaysa oo wax wanaajinaysa saas oo kale waxaa loo baahan yahay had iyo jeer inaad ogaatid adiga falcelintaadu inay ka muhiimsan tahay waxa kugu dhacaya yayan keenin qof kaa caraysiiyey inaad xabad intaa qaadatid ku dhufatid ama inaad ma garanaysaa caysid mathalan haddaan soo qaadano Soomaali baynu nahay qof hadduu waalidkaa caayo oo ku yiraahdo waalidkaa baa saas oo adiguna waalidkiis iyo ayoyaalkiis iyo dadkii dhalay iyo qabiiladiisi iyo reerkiis iyo meeshuu ka askumay intaaba caysid hadde waxaad garanaysaa inay marka adigu aad tahay qof xadgudbay maxaa yeele ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala wain caaqabtum facaaqibuu bimithli maa cuuqibtum bih xataa haddaa aarsanaysid ha dhaafin intii qofka uu ku gaarsiiyey laakiin inagu waxaynu jecelnahay had iyo jeer inaynu kasii badino hadday dadku marka qaanuunkan ogaan lahaayeen noloshaada wax weyn buu ka bedelayaa waxaa dhacaysa inaad dad badan u cudur daarsid waxaa dhacaysa hadalla xun oo kaa soo bixi lahaa inaad ilaalisid waxaa la ogaaday qofka haddii laga caraysiiyo 20 second oo ugu horeeya hadduu isceliyo waxa ficilkiisoo dama dhan inay fiicnaadaan ba laga yaabaa oo ay acsaabtiisii iyo maskaxdiisii iyo kulli ay degaan laakiin haddaad tidhaahdid ma saasuu yiri ku dhirfo dharbaax waxay noqonaysaa inaadan qaanuunkii si fiican aadan u fahmin marka qaanuunkan ka faa'iidayso waxa ku gaaraya waxa ka daran waxa aad ka falcelinaysid waxaan jeclahay inaad wax ka faa'iidaysateen muxuu ahaa xalaqadatan intaas ayaan kusoo koobaynaa wallahu subxaanahu watacaala aclam.